وتلك الأيام نداولها بين الناس. taariikhu way isbedelaan oo waxaa dhici karta in wadamada ugu awooda badan caalamka ay noqdaan kuwa daciif ah. sidaas la mid ah waxaa dhacday in dalal kamid ah dalalka caalamka ay ahaan jireen kuwa sabool ah maantana ay yihiin kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka. Japan dagaalkii labaad ee adduunka waa la jabiyay waana la baabi'iyay. in ka yar 25 sano ayay ku hogaamisay adduunka aqoonta iyo tiknoolajiyada. Rwanda 1994 waxay isku laayeen si argagax leh waxayna soo dhadhamiyeen cadaabka iyo colaad beeleedka. kadib markay heshay nidaam taagan waxay noqdeen kuwa la jaanqaada caalamka horumaray. Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka dhulka la simay wax loo reebtayna ma jirin. muddo yar oo aad u yar ayay mar labaad dunida ku hogaamisay iyadoo rumaysan qodobo aan ku xusi doono muuqaalka dhamaadkiisa. waxayna gaareen heer ilaa xad ay dhaheen qof kasta oo Jarmal ah waa inuu shaqeeyaa 10 saacadood wuxuuna leeyahay 8 saacadood lacagtooda. 2 saacna waxaa loo shaqeynayaa qaab tabarucaad ah maadaama Jarmalku uu xilliga ku jabay dagaalkii labaad ee adduunka. horumarka tiknoolajiyada ee dunida yaala ama horumarka maadiga qaybtiisa nidaamka ku saabsan iyo qaybtiisa kale ee wax soo saarka ku saabsan waxaa jira qaanuun xukumo oo cidii qaadata waxay doontaa rumaysnaatee ay horumari karto cidii ka tagtaana ay dib u dhici doonto. waxaa la yiraahdaa 5 shay haddii laga helo ummad waa qasab ummadaas inay horumarto. midda koobaad ummad kasta oo tijaabisa dhulkeeda inay ka faa'iideysato waxa dul saaran iyo waxa gudihiisa ku jira waxay heshay qaanuunkii koobaad ee horumarka. midda labaad ummad kasta oo waqtigeeda ka faa'iideysata oo waqtigeeda qayb u kala qaybsata waxay qaban lahayd waxay heshay qaanuunkii labaad ee horumarka. midda saddexaad ummad kasta oo tijaabisa sidii ay u heli lahayd aqoon-yahanadeeda oo ku filan waxay heshay qaanuunkii saddexaad ee horumarka. midda afraad ummad kasta oo haysata nidaam taagan walow nidaamkaasi ha xumaadee howlfulintiisa nololeed sidii loogu talagalay haddii ay u soconayso waxaa khasaba ummadaasi inay horumarto iyadoo aan cidna ku tiirsanayn waxayna heshay qaanuunkii afraad ee horumarka. midda shanaad ummad kasta oo haysata dhaqan ama diin ogol 4 qodob aan kor ku soo sheegnay inay hirgeli karaan. maxaa loola jeedaa midaas? dhaqamada qaarkood in laga taga maahee laguma horumari karo. tusaale ahaan dhaqanka hinduuska waxaa mamnuuca in la dilo jiirka. ummad haddii deysato jiirka kama suurtagal ah inay horumarto. yacni jiirka waa mid dhaqso u tarma dhibaato badan beeraha iyo wax kasta oo la beero madaxa u rogo. tusaale kale waxaa la yiraahdaa dhaqanka Christianity-ga in wax lagu maamulo in laga tago waxay ahayd mid u faa'iido inay bini'aadamku horumaraan. tusaale ahaan aragtidaasi waagaasi waxay qabtay guurka inuu wax xun yahay ninka guursada iyo ninka aan guursan inuu fiican yahay. ummadii raasumaalkeedu waa dhulka waqtiga ay haysato iyo dadkeeda. haddii ay dhici weydo inay ka faa'iideysato waxay noqonaysaa kuwa aan laga aqoon caalamka kuna sigta xitaa inay ka baxaan khariirada caalamka. intaas ayaynu kusoo gunaanadeynaa muuqaalkan aan uga hadlaynay horumarka ummad. haddii uu ku qanciyay muuqaalkan like saar kuna soo biir kanaalkan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.